بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah boos bannaan oo ah meesha hadda arkayseen waa boos maasha allah meel aad iyo aad u fiican ku yaalla xaafad dhisan ku yaalla waddadan ayaa hormarta meeshaana waa meel kale isgoys ah oo waddo kale oo weyn ka soo dhacdo booska iibka ahne gurigan sarta ah ayuu mitarada la qaataa waa meeshaan hadda geedaha ay ka baxayaan filladanna waa uu ka soo horjeedaa filladaas quruxda badan leh ayaa dhinacaas ka xigto waa dhulkan bannaan balooga ama lootada uu ku jirane way wada dhisan tahay marka asaga laga reebo walaalayaal xaafadda aan booskan ka soo gudbinayno waxay u dhisan tahay afar boos kasto jid ayaa yimaado taasoo boos kasta inuu laba jidle ah ka dhigayso hadda meeshaan angalka ayaad ka arki kartaan saddexda boos kale ee balooga kula jirto way dhisan yihiin waa 4 boos oo kala jeedo 2 iyo 2 ayay dhabarka isugu hayaan walaalayaal waa meel deegaan aad ugu fiican meeshaan bannaan ayaa guriga ka dhisanaysaa fillo bacweyne dabaq hadba nuuca ah rabtid oo jeeda xaafadda sida ay u wada dhisantahay oo qurux badan tahay soo dhawaada walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta booskan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo booskani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdishona waxa uga sii yaallaa degmada kaaraan walaalayaal degmada kaaraanna waxa uga sii yaallaa xaafadda jamhuuriyo dhanka argentiin soo xigto sarta jamhuuriyo ayuu toos ugu aadan yahay ama weliba markaa wax yar soo dhaafto dhanka masaajidka turkiga waddadan hadda waxay toos u gashaa jidcadaha jamhuuriyo markaa joogto eriyada sarta jamhuuriyo ayaa waxaa usoo leexanaysaa dhanka iyo argentiin booskan si haddii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa waa argentiin ama waa jamhuuriyo bilowgeeda walaalayaal wuxuu kale u dhow yahay oo caan ah mawlaca Sheekh Cali Cabdulle waa argentiin xaafadda Sheekh Cali Cabdulle ama jamhuuriyo dhanka iyo sarta jamhuuriyo iyo Sheekh Cali Cabdulle soo xigto walaalayaal tilmaanta inaad si fiican u fahanteen ayaa rajeynayaa haddii aan u gudbo xagga cabirka oo ku fadhiyo booskan iibka ah walaalayaal wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 13 mitir iyo bar lagu dhuftay 13 mitir iyo bar waa dhulka loo yaqaano ama boosaska loo yaqaano tireedishaha 13 mitir iyo nuskii laga dhisayay ayuu ka kooban yahay marka waa iska tireedisha ama 13 waa dhul waasac ah sida muuqaalka ka aragtaan waxaa laga dhisi karaa hal fillo oo waasac ah ama guri ka kooban ilaa 6 qol marka cabir ahaan waa cabir heer sare ah xitaa dadka qaarkood way kala gooyaan ase waxay ka dhigaan 3 qol iyo 3 qol guri fillo ah oo 2 albaab leh oo kale ama 2 fillo oo yaryar oo tiiba ay tahay 3 qol musqulihii jikadii barandadii waxaasi oo dhan marka soo dhawaada xagga cabirka waa heer sare waa macquul waa cabirada kuwa ugu macquulsan badanaa cabiradan kuma fiicna in la kala gooyo waxa uu ku fiican yahay in hal famil la dejiyo oo hal guri oo waasac ah oo markaasi ka soo baxo hadda 4 qol ama 5 qol ka dhisto oo kale waxaa helaysaa baarkin weyn oo waasac ah walaalayaal xagga cabirka haddaan sidaas ugu gudbo oo aan u gudbo xaggaas iyo qiimaha booskan iibka ah waxaa lagu rabaa 45,000 oo doolarka Mareykanka ah kaliya oo isku dhammaad ah waana macadalaal iyo heshiis walaalayaal waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowdo kuma dhamaado
qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa laydinka dhimayaa insha allahu tacaala. qiimahana waa macquul aad iyo aad ayuu ugu qalmaa 45,000 keliya oo xaafad magaalada dhexdeeda ah aad u dhow oo weliba wadada laamiga ahna aan sidaas uga sii fogeyn iyo jidka kale ee Jamhuuriyo ee asagana laamiga la qorsheeyay oo weliba intaas jeer la dhagax dhigay. marka soo dhawaada waa meel istiraatiiji ah. suuqa Argentina sidoo kale kuma dheera magaalada qaybaheeda kala duwan sidaad jeceshahay ayaad ku aadi kartaa gaadiidka noocyadooda kala duwan adigoo isticmaalayo gaadiidka dadweynaha. haddii la dhaho jidka Jamhuuriyo ayaan kaa fogeyn oo baabuur nooc kasta aad ka helay fagax sidoo kale kaama dheera. soo dhawaada walaalayaal waa $45,000 Mareykanka ah keliya maca dalaal iyo heshiis. haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan idin soo tusino booskan iibka ah. haddii aad ku qanacdaanna qiimaha wixii macquul ah laga heshiiyo. haddii aad maqan tihiin walaalayaal dhanka WhatsApp-ka ayaa naga soo wici kartaan faahfaahin buuxda ayaa idinka siinaynaa kadibna qof wakiil ah ayaa soo dirsanaysaan. markii guriga la arko qiimaha ayaa laga heshiinaa kadibna howshaada ayaa lagu dhameynaa insha allahu tacaala. walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga jidadka booskan iibka ah waa laba jidle 2 wado ayuu isku haystaa. wadadan gurigan sarta ah dhankiisa ah iyo wadada dhinaca kale ee gurigaas kale ee filada ah. marka waa laba jidle wadooyin macquul ah saaran. haddii aan walaalayaal u gudbo xagga iyo jihada booskan iibka ah waa laba jidle bari ujeed ah bari ujeed iyo weliba koonfur ujeed oo ah boosaska nooca loogu jecel yahay. waa asagoo laba jidle ah haddana bari ujeed iyo koonfur ujeed ah waasac ah. soo dhawaada waa fursad walaalayaal ka faa'iideysta. dhammaan xaafadan boosaskeeda oo dhanna waa laba jidlayaal. taas ayaa keentay inaa heshid asagoo laba jidle ah haddana bari ujeed iyo koonfur ujeed oo labada jiho loogu jeclaay isku haysta. walaalayaal haddii aan u gudbo xagga dukumiintiga iyo sharciga booskan iibka ah waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran kaas oo ah rasiid iyo sawarloog originaal ah Maxamed Siyaad Barre ah. walaalayaal sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhammaystiran yihiin. haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaad dukumiintiga idin geyno nootayadii aad dalbataan si laydinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumiintiga insha allahu tacaala. shirkadda Dallas waxaa mar walba ay ku dadaashaa inay idin soo gudbiso dhulalka iyo boosaska ay dukumiintiyadooda sharciyadooda saxan yihiin dhammaystiran yihiin. markii wax walwal ah ka qabina waa dukumiinti saxan oo haddana diyaar loo leeyahay in lagu geeyo nootayadii aad dalbatid. walaalayaal si kooban hadda ugu hadlo waxaa idinka anfici karo dhulkan kow wuxuu idinka anfici karaa deegaan waa xaafad camiran oo istiraatiiji ah. 2 wuxuu idinka anfici karaa maalgashi ama bararsi waa dhul wadooyin fiican leh xaafad siman oo taag ah ku yaala oo biyo deg iyo waxaas looga baqayn qiimahan uu macquul yahay raqiis yahay laba jidle bari ujeed iyo koonfur ujeed ah. marka in lacag ay ku kororto waa ay u badan tahay weliba hadda qiimihiisa waa raqiis waa macquul. midda saddexaad walaalayaal waa meel haddii aad dhistaan aad kireysan kartaan oo dakhli idinka soo geli karo. soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaa idinkugu beecgeynaynaa insha allahu tacaala. walaalayaal haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waa idin helaynaa insha allah. ugu dambeyntii walaalayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka idin soo gudbinayno insha allahu tacaala. sidoo kale facebookana follow inaga soo dhaha. waa mahadsantihiin mar kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.